Tani waa Dubai-da maanta. Sidoo kale tanina waa Dubai-da shalay. Markaad maqasho magaca Dubai, maskaxdaada waxa ku soo dhacaya dhismayaal dhaadheer, baabuur qaaliya, hoteelo waaweyn iyo sidoo kale dhismaha dheer ee Burj Khalifa ee cirka taabanaya. Laakiin Dubai ma aysan caan ku noqon dhismayaasha kaliya. Su'aasha isweydiinta mudan ayaa sidee ayaa magaalo ku taala saxare oo aan lahayn dhul beereed una dhow dalal shidaalkoodu aad u sareeyo ugu dambeyn u noqotay mid ka mid ah xarumaha ugu muhiimsan ee ganacsiga ee bariga dhexe ka jira. Sidee ayaa ganacsato ka kala timid Aasiya, Afrika, Yurub iyo sidoo kale bariga dhexe ugu jeesteen halkan magaalo oo kaliya? Sidoo kale su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah maxay Dubai samaysay oo aysan samayn magaalooyinka kale ee dhigooda ah? Ma shidaal ayaa dhisay mise waxaa jira qorshe ka weyn shidaalka? Maanta waxaanu dib ugu noqon doonaa taariikhda Dubai si aynu u fahanno sida magaalo yar oo xeebeed ay ugu bedelantay xarun ay dunida ganacsiga iyo maalgashigu aad u raadiso. Si aynu u fahanno Dubai-da maanta, waa inaynu marka hore fahanaa Dubai-da shalay. Ka hor intaan la arkin dhismayaasha dhaadheer, waddooyinka waaweyn iyo hoteelada raaxada leh, Dubai waxay hore u ahayd magaalo ku tiirsan nolosha badda iyo ganacsiga. Dadkeeduna waxay ka shaqaysan jireen kalluumaysiga, ganacsiga badda iyo gaar ahaan luuldoonka. Maraakiib yaryar ayaa u dhaqaaqi jiray xeebaha, iyagoo badeecooyinkooda iyo dadka ay qaadayaan isku xidhiidhin jiray geyn jireen gobolka. Dubai waxay ahayd meel ganacsi oo muhiim u ah dadka u kala goosha bariga dhexe, Hindiya iyo sidoo kale Faris iyo bariga dhexe. Taasina waxayna tusinaysaa hal arrin oo muhiim ah. Ganacsiga Dubai kuma uusan bilaabmin kaliya dhismayaal dhaadheer ee maanta lagu yaqaan. Wuxuu ku bilaabmay xilli magaalo aysan lahayn astaamaha maanta lagu yaqaan. Waxayna hore u lahayd waxa magaalo ganacsi u baahan tahay oo ah goob istiraatiiji iyo xidhiidh badeed. Dubai waxay ku taallaa meel aad muhiim u ah. Haddii aad eegtana khariidada, waxay ku taallaa meel isku xidha dhammaan qaaradaha Aasiya, Afrika, Yurub iyo sidoo kale bariga dhexe. Tanina Dubai waxay siisay fursad aan marnaba la iska indhatiri karin. Ganacsade ka imanaya Aasiya wuxuu u baahan yahay meel uu badeecadiisa ku dejiyo. Ganacsade sidoo kale Yurub ka socda wuxuu u baahan yahay meel uu ka galo gobolka. Dhanka kale, ganacsade Afrikaan ah wuxuu raadinayaa meel uu badeecadiisa u soo dhoofiyo ama sidoo kale uu ka helo suuqyada kale ee caalamka. Taasina waa meesha ay fikradda Dubai ka bilaabatay. Ma noqon kaliya magaalo, waxay noqotay meel isku xidha magaalooyinka adduunka iyo caalamka. Markii shidaalka laga helay Dubai, magaaladani waxay heshay awood cusub. Balse hal arrin oo muhiim ah ayaa jiray. Wuxuuna ahaa Dubai ma aysan lahayn kayd shidaal si la mid ah kuwa dariskeeda ah ee khaliijka. Su'aashuna waxay ahayd maxaa dhici doona markuu dakhliga shidaalku yaraado? Halkii mustaqbalka oo dhan lagu tiirsanaan lahaa shidaalka, Dubai waxay bilowday inay eegto meelo ka baxsan shidaalka. Waxayna maalgelisay kaabayaal ay ka mid tahay dekado, waddooyin, garoomo diyaaradeed iyo goobo ganacsi iyo adeegyo u fududeynaya shirkadaha caalamiga ah inay magaaladani yimaadaan. Fikraduna waxay ahayd mid fudud. Haddii aanad haysan kheyraadka ugu badan, waxaad noqon kartaa meesha kheyraadka iyo lacagta iyo dadku ay maraan. Mid ka mid ah meelihii ugu muhiimsanaa ee qorshaha ay sameynaysay Dubai wuxuu noqday Jabal Ali. Waxaanay ahayd dekada ugu weyn ee ka jirta gudaha Dubai ilaa iyo hadda. Laakiin Jabal Ali ma aysan noqon dhammaan sheekada iyo Dubai sida ay u guuleysatay. Waxaa hareeraheeda laga sameeyay goobo ganacsi oo shirkadaha caalamiga ah u fududeynaya inay badeecadaheeda soo dejiyaan, kaydiyaan, farsameeyaan ama si kale inay dibadda u sii dhoofiyaan. Halkaas ayay Dubai ka bilowday inay noqoto wax ka badan magaalo. Waxayna noqotay mashiin ganacsi. Markab ayaa badeecad keenaya, dekad ayaa qaabilaysa, bakhaar ayaa lagu kaydinaya, gaadiid ayaa qaadaya, shirkad ayaa iibsanaysa adeegaasi. Ugu dambeynna diyaarad ama markab ayaa u sii gudbinaya meel kale. Wax walba waxay ku jiraan nidaam. Taasina waa sirta ugu weyn. Dubai ma aysan dhisin dekad kaliya. Waxay dhistay nidaam ganacsi oo ku wareegsan dekadda. Ganacsi ma shaqeeyo haddii aan dadka ganacsiga sameynaya aysan si fudud u safri karin. Halkaasna waxaa soo galay garoonka diyaaradaha ee Dubai International Airport. Kaas oo noqday mid ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan dunida caalamka ee maanta. Diyaarad ayaa ka imanaysa Aasiya, Afrika, Yurub, Amerika iyo magaalooyin waaweyn oo bariga dhexe ah. Shirkad ganacsi oo ku taala London waxay qofkeeda u diri kartaa Dubai, halka ganacsade Hindiya uu u iman karo kulan.
qof Afrikaan ah ayaa wuxuu u iman karaa inuu badeecad raadsado. Dhammaantood waxay ku soo dhacayaan isla nidaamkaas. Dubai waxay fahantay inay qofka magaalada keento, wuxuuna keenaa lacag, xidhiidh iyo ganacsi. Marka shirkadda diyaaradaha ee Emirates ay kor u kacday, Dubai waxay heshay awood kale. Ma ahayn oo kaliya Dubai inay leedahay garoon diyaaradeed. Waxay noqotay meel ay diyaaradaha dunida ay si joogto ah u dhex maraan. Tani waxay Dubai siisay faa'iido kale. Haddii aad rabto inaad ganacsi ka samayso qaarada badan, waxaad u baahan tahay meel aad si fudud uga gaari karto. Dubai-na waxay noqotay mid ka mid ah meelahaasi. Waxaana halkaasi ka dhashay fikrad muhiim ah. Dubai ma rabto kaliya dadka inay yimaadaan, balse waxay rabtaa inay noqoto meesha ay dadku uga kala gudbaan qaaradaha oo dhan. Marka Dubai ka hadlaysid, lama dhaafi karo dhismayaasha waaweyn sida Burj Khalifa, Palan Jumeirah, hoteelo waaweyn, goobo ganacsi iyo xaafado cusub. Laakiin dhismayaashaasi ma ahayn kaliya qurux, waxay qayb ka noqdeen dhaqaale kale. Dadka yimaada waxay u baahan yihiin hoteelo ay degaan. Shirkaduhu waxay sidoo kale u baahan yihiin xafiisyo. Maalgashadayaashuna waxay raadinayaan guryo. Ugu dambeynna, dalxiisayaashu waxay rabaan meel ay wax ka iibsadaan. Markaas waxay isku xidhan nidaamkan: dalxiis, hoteelo, meelo wax laga iibsado, dhulal la dego, shaqooyin iyo maalgashi. Sidaas darteed, dhismayaasha waaweyn waxay noqdeen qayb ka mid ah mashiinkan dhaqaalaha ee Dubai. Haddaba su'aashii hore aynu hadda ka jawaabno: maxay Dubai uga duwan tahay magaalooyinka kale? Jawaabtuna hal sabab ma aha, ee waa isku dar arrimo dhowr ah. Waxaana ka mid ah goob istiraatiiji ah, dekad weyn, garomo diyaaradeed oo caalami ah, kaabayaal casri ah, xarumo maaliyadeed, dalxiis iyo siyaasad dhaqaale oo muddo dheer lagu dhisayay in ganacsiga caalamiga ah magaalada lagu soo jiito. Laakiin marka dhammaantood la isku daro, waxay abuurayaan wax ka weyn qaybahaas oo idil. Markaad maanta eegto Dubai, waxaad arkaysaa magaalo leh dhismayaal dhaadheer, waddooyin waaweyn iyo nolol aan joogsi lahayn. Laakiin taas oo dhan waxaa ka muhiimsan inaad aragto nidaamka ay ku dhisan tahay Dubai. Dubai waxay fahantay dunida casriga ah, sidoo kalena awood dhaqaale aysan ku xidhnayn oo kaliya waxaad haysato. Waxay ku xidhan tahay meesha dadka kale kaga xidhan tahay, sida xeeb iyo sidoo kale goob istiraatiiji ah. Waxayna go'aansatay inay labadaasi ku dhisto mid u furan dunida maanta. Sidaas ayay magaalo yar oo ganacsi ku bilaabantay una noqotay xarun ay shirkado ganacsi, maalgashadayaal iyo dalxiisayaal dunida oo dhan ugu yimaadaan magaaladani. Dubai waxay saxraa dhexdiisa ka dhistay magaalo weyn, waxayna noqotay xarun isku xidha dunida maanta. Laakiin su'aasha xigta ayaa ah: Dubai ma sii wadi doontaa awoodda ay tobnaanka sano soo waday, mise magaalooyin kale ayaa hadda bilaabi doona tartan ay kaga qaadi doonaan halka ay ku jirto Dubai?